maalinka maxkamadda oo maalinta oo leegay xabsiga dhexe waa maalin xil maxaabiista qadada ay qaateen qof kasta oo garaan ah oo ku xiran xabsiga dhexe garaankiisa wuu qaatay qadadiisa markaas kadib in waxa waaye qofka xabsiga yacan la keeno subaxi kale ah waxa la siiyaa garaankiisa lagu xisaabiyaa subaxi saas oo kale quraacdi wax ma cun qadadii ahayd marka wax cunay total marka 3 maalin adiga haaf meelahaas ahayd waxaana wax cunin inta yani aaxirna ahayd qof kasta oo xabsiga ku jira telefoon meela may markaas waxa la gabar oo yani waa isku dhiibaa qof kasta dadkiisu la hadlaa dadka ku xiran oo meesha dumarka oo adiga ku xiran imisa qof ku xiran ma tirada inta qolka ku wada jirnaa adiga 25 miya ahayd 25 qof oo qolka adiga ku xiran oo aan telefoon helin adiga see kugu suurta gashay inaad hesho telefoon ay telefoonka maamulka dhiibo waxa la qof waliba qofkaaga la hadal saasal isku dhiibaa okay run waaye warkaas waa saxanta sheegaysa laakiin waxa tir qof ay soo wacay ma garanin wuxuu yahay qofka adiga inaad telefoon xilliga haysatay ku ogaad ma ogi kale in hore loogu sheegay markaas ma aqaan laakiin Saadi Bajaaj ma aha marka xilliga telefoonka lagu dhiibay qof ku soo wacay marka gabar iga horeysay oo hadlaysay kadib tooka isku dhiibay ani marka la dhiibana saas ahayd hore la iga soo wacay waa qabta anigana hore waxaad u sheegtay adiga qareenkuna oo su'aal ka weydiiyay xafiiska xeerlaantuna ay ku doodeen in fiidiyoogii la soo bandhigana ay kamid aheeday in la sababta booliska qof kamid ay kula soo xiriireen ay rabaan inay ku sumcad dilaan kufsi ku geystaan lagu dilo dhibaato lagu sameeyo si ku ogaato waxaas xogtaas maya midda kufsiga difaac nafsi aan iga ahayd cabsi aan iga ahayd ma ahayn qof inuu isoo waco idhaa waa ku kufsanaa ama iigu hanjow ma ahayn laakiin xaraga waa yani way jirtay marka qofku soo wacday oo arinta ku sheegtay ma jirto oo kufsiga in video laga duuba difaac nafsi iyo cabsi aan iga ahayd video kala la soo bandhigo oo aad sheegayso 16 mase 17 qof oo mas'uuliyiin oo gobolka Banaadir ka tirsan waxaad ku doodo markii su'aal uu ku weydiiyay qareenku in aad qodobka 31 ee dastuurka xaq u leedahay in xogta la helo qofku xaq u leeyahay inuu xog helo dastuurku sidaas oo sheegay sax laakiin maxaa waxa gaarka ah oo ka maqnay xogtaas gaarka maxay oo adiga sida gaarka u tirinayso maadaama wadanka oo qabiil gaarna u tirinayso oo baabahay ay leeyihiin maxaad ka wada maadaama 1.5 awood qaybsi lagu qaybsadaa wadanka 4.5 si loogu gudbo ama dhibaatooyinka ka dhalan karo 4.5 ina ka gudubnay inay anaga dan noo tahay bay iga ahayd okay ma ku jirtaa fiidiyogaaga hadalkan hadda aad sheegayso adiga oo in si loogu gudbo dabcan waa ku jirtaa ma keeni kartaa qoraal marka video gal soo dhiga qoraal la soo raacsiyaa su'aal maxkamada hortaagan tahay su'aal la weydiina ujeedkana waxa in cadaalad la gaaro ma aha wax adiga si gaar loogu challenge gareena ma hadalka aad soo bandhigtay xafiiska xeer ilaalinta wuxuu soo gudbiyay video aad ka hadlayso qof hebel aalada sax oo qabaa'ilada oo aalada baab xasan iyo qarab leeyihiin waxaad sheegtay sababta asaa u sameynaysa inay taas 4.5 kay waxa si loo gudbo inay tahay sax hadalka fiidiyogaaga ma ku jirtaa si looga gudbo oo dhibaatadaas taagan oo iidaas oo intaas oo qofood hal meel ay wada joogto in la gudbo inay tahay oo wada kale ama meel kale la aad ma ku jirtaa fiidiyogaaga may qoraal jir laakiin xafiiska xeerlaalintu waxay sheegeen dooddoodii markay soo gudbinayaan 114 inaad wada bajaaj aheeday ليسن لا أنا هنا ما جرت عرفتها صح ليسن ما يصير واحد ليسن ما بجاجنا وضو مو بهانتها هنا شرعيتها الشعب وضو طبعا يا طبعا اوكي
dhaliilahaaga oo hadda aad ka waday in muxuu hal qabiil iyo macnaha dadka noocaas oo hadda aad tiriyayso aad dhaysay waa qabiil hebel waa hebel oo ka yahay meesha soo joog aal heeday waxaad u hadlayso dawladnimo ma ahayn in waxaan la saxo sa hadda sheeg okay adii naftaada maxaa ugu bilaabi weyso leesin qaado weyso sa dawladnimo tabara ii diiday tabara ii diiday leesinka inaan qaato leesin meeqa lagu qaataa 130 iyo dhowr lagu qaataa bajaajta kiriye Soomaa bajaajta kiriye kiriyeeda qofka maalintii meeqa ka qaataa qofka $15 loo diraa qofka iska leh mootada $15 qofka oo darawalka oo kirada lacagta marka uu bixiyo maxaa u soo heri kara macnaha maalintii markuu shaqeeyo $5 $6 u soo heri karto بيجكاga TikTok ama tusi kartaa waa idin tusi karaa mise qof follow ku 215 miya waxsas mise video atal videoyaasha waa laga xir marka 45 maal romaanka la ijaray maxkamaddu waxay amar ku bixisay videoyaasha inaan ka bixiyo okay wax video kuma jiro hal markaas ka bixi ma aqaan wixii kale laakiin maxkamadda amar ku bixisay isla xiligaas inaan video ka saaro mobilkan markaas waxa iga maxkamaddu waxay amartay in mobilka 50 daqiiqo la siiyo si aan uga saaro waxa mobilka qabteen baarihi kiiskeyga nin kale oo la ii sheegay taliyay saldhiga degmada ka xaday inuu yahay teleefankeyga markaas wixii ka dambeeyay 1 saac iyo 2 saac haysteen ayaga haysteen waa u furay aniga ayadoo warqad fatashaad aysan dalban garsooraha wuxuu dhahay haddii ay joojin weydo kidii waa warqad fatashaad lagu qoraa lahay baaraha kiiska as maxaa lagu weeday barnaamijaa sameyn aniga iyo bajaajley barnaamijaa ahayd hay okay ما قمنا حرنت هذا 74 مالين اوكي